السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo dhowr arrimood sababtoo ah waxaa aad iyo aad beryahan igu soo falbatay su-aalo la xiriira dadka jooga waddankan Poland hadda waqtiga xaadirka soo galay xaaladooda waxay ku sugan yihiin. waxaan rabaa midda koowaad inaan idin sharaxo systemka ama sharciga waddankan Poland ka yaalo sababtoo ah waddankan Poland qofkii soo gala ee ku soo gala sharci darro kana soo gudba xadka asagoo wuxuu leeyahay wax dokumenti ah ama visa u haysan waddankan Poland. waddankan waxaa ka yaala sharci inkastoo sharciyadu aad u adag yihiin waddankan Poland haddana waxaan rabaa inaan idin sharaxo qaabku uu egyahay sharcigaas. qofka marka ugu horeysa uu waddankan soo galo waxaa qabta ciidanka xuduudda. ciidanka xuduudda waxay marsiyaan procedure loogu talagalay ama qaabka sharci ee u yaala waddankan Poland kaasoo ah qofka markay soo qabtaan qofka waxay geeyaan maxkamad waxayna ka codsadaan maxkamadda in qofkan maadaama uusan wax dokumenti ah wadanin la aqoonin qofka uu yahay inay maxkamadda waxay ka codsadaan in ay u diraan xero aan laga bixi karin ee ajaanibka loogu talagalay. xabsi maaha waa xabsi oo kaleeto laakiin lagama bixi karo laakiin waxaa la geeyaa oo keliya ajaanibka waddankan kusoo gala sharci darrada iyo dadka deportationka ah loogu talagalay ama dib waddanka looga celiyo la rabo. marka maxkamadda ay geeyaan dadka maxkamaddana waxay ka codsadaan inay ku xukumaan ugu yaraan 3 bilood. maxkamadda way ka aqbashaa dadka waxaa loo diraa 3 bilood maxaa la yiraahdaa xeradaas aan laga bixi karin ajaanibta ah. kadib markii xeradaas la geeyo qofka wuxuu xaq u leeyahay in uu codsado qaxootinimo. inta ku horeyso waa laga yaabaa inaysan codsan karin qaxootinimo laakiin markii xeradaas la geeyo lagu xukumo muddada 3 bilood gudahooda wuxuu ka codsan karaa qaxootinimo. marka laba shay ayaa isdul soconaya. ciidankan xuduudda ah waxay bilaabayaan procedure-ka ama macnaha qaabkii qofkan kusoo gala waddanka sharci darro sidii waddanka dib loogu celin lahay waddankiisa uu ka yimid ama waddanka uu kasoo jeedo dib loogu celin lahay ayay bilaabayaan. qaybta kaleetana waxaa waaye qaybta qaxootinimada. marka qofka hadduu codsado qaxootinimo wuu xaq u leeyahay inuu codsado qaxootinimo. hadduu codsado qaxootinimo waxaa bilaabanaya procedure-kaas qaxootinimada bilaabanayso inta laga gaarayo go-aanka madambaysa ah arrimihiisa qaxootinimona waddankan dib loogama celin karo. haddii qofka uu codsado qaxootinimo waxaa la marsiinaya interview ama wareysi la yeelanaya. wareysigaas kadib haddii uu positive ku helana waa sidii la rabay alxamdulilah waay. haddii negative uu ka helana wuxuu xaq u leeyahay inuu kasoo qorto abiil ama cabasho uu kasoo qorto. kiiskiisa dib ayaa loo bilaabaya. haddii mar labaadna si negative la siiyo arrintiisa waxaa loo gudbinaya maxkamadda. maxkamadda ayaa go-aanka kama dambeysa gaarayso in waddankan qofka uu sii joogo ama in waddankiisa dib loogu celiyo. taasna waxay qaadanaysaa muddo aad u dheer waxaa laga yaabaa sanad iyo bar 2 sano inay qaadato. ilaa iyo hadda waqtiga xaadirka ah ma jirto qof Soomaali ah oo waddankan qaxootinimo ka codsaday waddanka dib loogu celiyo Soomaali dib loogu celiyo sababta waddankan Poland way ogyihiin in Soomaali dowlad fiican aysan ka jirin. marka ma dhicin ilaa haddeer qof Soomaali ah waddanka dib loogu celiyo. badanaa Soomaalida waxay siiyaan dokumentiya siiyaan kadibna waxa waaye qofka wuxuu xaq u leeyahay inuu waddankan Poland deganaado oo ka shaqeysto haddii uu rabo. marka waxaan rabaa in idiin sheego qofka waxaa la marsiinayaa procedure-kaas ama qaabkaas uu maraya. intii waxaas ka horeysa qofku wuxuu ku jiraya xeradaas. waxaan rabaa inaan idiin sheego oon ogahay dad badan oo ka walwalsan waxyaaba ay ku sugan yihiin dadkii hadda yimid waddankan Poland soo galay oo kasoo galay qaybtan Belarus kasoo galay. ilaa hadda intaan ka warqabo waa 30 qofood. waxaan idiin sheegaya oo keliya inay dadkaas caafimaad qabaan ee meel nabada joogaan waxay cunaan ay haystaan meel jiftaan ay haystaan. taasana muhiimadda koowaad ah. dad badan ayaa su'aalo soo weydiiyo maalin walba telefoonka ma dhigo sababta ah telefoonka dadka qaarkood kama qabto sababta ah uma haayo jawaabo su'aalaha ay soo weydiinayaan sababta su'aalaha qaab darra qaarkood soo weydiiyaan.
sidee meesha ninka loogu soo bixi karaa, qafka loogu soo bixi karaa, sidee wadanka loogu sii tahriibi karaa, wadamadan kale Yurub loo diri karaa. Su-aalahaas jawaab uma hayo, mana aqaano. Sababtoo qofkan waxaa haysta dowladda haysto, aan ka warsugno ilaa iyo meesha ku dambeyn doonto arrimihiisa. intii waxaas ka horeeyo su-aalaha la isoo weydiinayo oo ah qaabkii ninkan dadkan loo caawin lahaa iyo jawaabteeda ma hayo aniga. sababta awood uma lihi in aan dadka aan ka caawiyo sidii meesha looga soo saari lahaa iyo in kaleeto. sababta waxaan waa sharci dowladda u yaallo, dowladdana laga sugayaa go-aankaas. waan dareensanahay in dad badan oo waalid ah ay ka walwalsan yihiin caruurtooda. aad iyo aad ayaan dareensanahay, laakiin waxaan kaliya idiin sheegayaa inaad horta marka u horeyso aad ilaahay ku mahad celisaan. sababta dadkan waxay joogaan meel nabad ah waqtiga xaadirka ah, wax dhibaato ma haysto. qofka hadduu xanuunsan yahay dhakhtaraa la geeyaa, hadduu meeloo jiifto wuu haystaa, meesha ku dambeyn doonto arrimihiisa. intii waxaas ka horeeyo su-aalaha la isoo weydiinayo oo ah qaabkii ninkan dadkan loo caawin lahaa iyo jawaabteeda ma hayo aniga. sababta awood uma lihi in aan dadka aan ka caawiyo sidii meesha looga soo saari lahaa iyo in kaleeto. sababta waxaan waa sharci dowladda u yaallo, dowladdana laga sugayaa go-aankaas. waan dareensanahay in dad badan oo waalid ah ay ka walwalsan yihiin caruurtooda. aad iyo aad ayaan dareensanahay, laakiin waxaan kaliya idiin sheegayaa inaad horta marka u horeyso aad ilaahay ku mahad celisaan. sababta dadkan waxay joogaan meel nabad ah waqtiga xaadirka ah, wax dhibaato ma haysto. qofka hadduu xanuunsan yahay dhakhtaraa la geeyaa, hadduu meeloo jiifto wuu haystaa, wax cunana wuu haystaa. wixii intaas ka dambeyn wuxuu sugayaa mataqaanaa go-aankii laga gaarayo arrimihiisa. intaas ka horeysane waxaan idinku wargelinayaa inaad qalbiga khayr u sheegtaan. sababta ah waan daalay, si maalin walba qof isoo wacay, telefoona lagu soo wacay oo la weydiinayay dadkaas xaaladooda ka waranayo. aniga naftkii xaaladooda meela ku sugan yihiin ma aqaano. sababta ah dadkii way soo farabateen. hadda Soomaali kaliya soo ma gashay, waxaa soo gashay ilaa intaasoo kun oo qofooda mataqaana oo ka yimid Afghanistan iyo maxaa la yidhaha Iiraan, Ciraaq, meel kasta ka imaadeen. xerooyinkii dadka loo kala qaybinayay way kala fogaadeen. dadka Soomaalidana qaar waxaa la geeyey xerooyin gooniyaa la geeyey. waqtiga xaadirka xataa ma garanayo meel la kala geeyey, Soomaalida la kala geeyey ma aqaano, ma garanayo meelaha kala xiriirana ma aqaano. waxaan idinka codsanaya xataa haddii aad haysaan telefoon ama idin soo waceen dadka ku xidha xorooyinkaas inaad xataa telefoonkaas isoo gudbisaan. sababta aniga dadkayga doonaya inaan la xiriiro, aan weydiiyo xaaladooda waxay ku sugan aan weydiiyo. intaas waxaan kusoo gabagabeynayaa arrimahan ku saabsan dadkaas xaaladooda ah. waxaad ogaataan waddan kasta markaas u gelaysid sharciguu leeyahay. waddankan sharcigiisa aad iyo aad ay u adag yihiin. waxaanse kaloo idin xasuusinayaa in waqtigan xaadirka ah sheekadan ku saabsan kasoo gelidda xadkan qaybtan Belarus inay isku bedesho siyaasad. waaga horeeto qofka dhibaatooyin waxaa ma soo mari jiray. qofka markuu xad kasoo gudbo ciidanka xuduudaha qaban jiray, arrintuu iska fududa. laakiin hadda waqtigan xaadirka ah waxay noqon doonto arrimahooda lama yaqaano. sababta arrintuu isku bedesho siyaasad. waqtigan xaadirka ah qaybta xuduudka Poland iyo Belarus waxaa laga dhigay dowladdan Poland waxay ku dhawaaqday inay geeyaan xaalad degdeg ah. waxaa meeshan la geeyey ciidan rasmi ah. waxaa laga dhisayaa maxaa la yidhahdaa fiilooyin hadda waqtiga xaadirka ku xirayaan oo ilaa 2 mitir ah. khatarteedana qofka inuusan kusoo gudbi karin. marka waxay ku tala jiraan ama ay ka hortagayaan inaan lagu soo badan waddankan Poland. sababtoo ah dadkan Belaruska ama dowladdan Belaruska waxay go-aan ku gaartay iyadoo ku xumeynayso dowladaha Yurub, khaasatan Poland ku xumeynayso, ayay waxay soo fasaxday wixii waddankooda soo galo inay hore usoo gudbaan. dad ayaa waqtiga xaadirka waxay ku xayiran yihiin inta u dhexeysa Poland iyo Belarus. Polandina ay diiday inay soo galaan waddankooda, Belaruskana ay diideen inay dib u noqdaan waddankooda. waxaa la maqlayaa hataa inay dhowr Soomaaliya ku jiraan. xaaladooda meel waxay ku sugan yihiin lama garanayo. inkastoo aada looga deerinayo xaaladooda dadka qaarkood oo laleeyahay meesha roob badanna way ka jiraan, qabowna wuu ka jiraa, waxay raashin cunaan ma haystaan, biyana ma haystaan. marka sidaas darteed waxaan idin sheegayaa ama idinkula dardaarmayaa
in haddii aad awoodaan aadan isku soo dayin waqtigan xaadirka haddii ay jiraan dad jooga waqtigan xaadirka Belarus oo doonaya inay kasoo gudbaan waddankan Poland inaysan waqtigan xaadirka soo aadin waddankan Poland ama xadkaas isoo soo aadin. waa iga talo aan u diraya fariin walaalayga Soomaaliyeed oo meel kasta ay joogaan. waxaan idinka codsanayaa in haddii fariinteydaas idin soo gaarto inaad usoo gudbisaan ummadda kaleeto. mahadsanidin.